channelka subscribe saar kana barnaamijka ugu dagalin rabnaa inaan idin wadaagno macluumaad ku saabsan iskuulka Abaarso oo baryahan dambe social media qabsaday. waxaan rabnaa inaan idinkaga jawaabno su'aalaha maskaxdiina ka guuxaya oo ay ka mid yihiin: goorma ayaa la aasaasay iskuulka Abaarso? xageesa ku yaala? yaa aasaasay? iyo maxay ahayd ujeedada loo aasaasay? iskuulka Abaarso waxa uu ku yaalaa waqooyiga magaalada Hargeysa, meel u jidha 18 kiiloomitir. iskuulka Abaarso waxa la aasaasay sanadu markay ahayd 2009 waxaana aasaasay nin lagu magacaabo Jonas Starr oo ahaa madaxii hore ee fulinta dhaqaalaha Ameerika, kadib markii uu ku deeqay in ka badan $500,000 dhaqaalihiisa. waxaanu rabnaa inaan idin wadaagno qaar ka mid ah ardayda iskuulka Abaarso oo ka sheekeynaya waxyaalaha ka jira iskuulkaas. waa Anisa oo ka sheekeynaysa macluumaad badan oo ku saabsan iskuulka Abaarso. qaarkood way tutuujiyaan, qaarkoodna waaba saaxiibaba oo ma rabo inaan magacyadooda sheego. ma doonayo inaan faahfaahin dheer sii galo, balse wax badan ayaa ka jira halkan oo uu Cabdimaalig Muuse Coldoon u sheegayo. Anisa Yuusuf Nuux oo ah ardayad dhigatay iskuulka Abaarso ayaa qoraal dheer ku baahisay barteeda Facebook, iyadoona ballan qaaday inay muuqaalo sir ah oo waliba ay iyadu telefoonkeeda ay ku duubto ay soo gelin doonto baraha bulshada.